waxaan idiin soo gudbi doonaa astaamooyin noloshiina iyo jaceylkiina burburi karo. haddii astaamahan mar walba aad xiisaysid waxaad ka daawan kartaa barta YouTube-ka ku leenahay Socdaal 24 iyo aaladdeena TikTok-ga Socdaal 24. astaanta koowaad, haddii mar walba jaceylkiina uu yahay mid lagu sheekaysto ama ay og yihiin saaxiibadiina, mar walba jaceylkiina waxa uu noqonayaa mid aan hore socod lahayn. labada qof ee lamaanaha ee mar walba xiriirka jacayl ka dhaxeeya waxaa laga doonayaa labadooda oo kaliya in xiriirkooda jacayl ay quruxda badan mar walba uu ka dhaxeeyo, sababtoo ah shaygu marka uu qarsan yahay waxa uu yahay wax qurux badan. qof walba waxa uu isweydiinayaa labadiina waxa inga dhaxeeyo. mararka qaar markaad dadka la joogtiin sidoo kale waxaa la rabaa xataa inaa indhaha iskala hadashiin adinku oo aanan isla hadlin. taasi waxa ay keenaysaa isfahan in noloshiina hore ay sii socoto. laakiin maanta markay og yihiin dad fara badan mar walbana xiriirkiina lagu sheekaysanayo waxa uu noqonayaa maanta khilaaf markuu imaado dad kale inay xaliyaan. waxaana mar walba imaanaysa dad kale noloshiina inay xaliyaan adinkoona oo xalkii faraha ka baxo. laakiin mar walba haddii ay tahay xalisku adinkiina is xali kartiin waxa uu noqonayaa mid guuleysto. 2. gabadhu mar walba kama hesho ereyada murugada badan, sababtoo ah gabdhuhu waxay yihiin kuwo qalbigooda aad u yar yahay. mar walba waxay jecel yihiin kaalmaha suugaanta iyo ereyada aadku macaan qalbigooda mar walba in la tuso. mar walba oo gabadha amaantina waxay dareemaysaa ruux jecel inaad tahay, jaceylkiinana hore u soco karo. adiga oo ammaani karo ka ilaali qalbigeeda murugo, sababtoo ah 10 sano kadib xitaa waa ay soo xasuusanaysaa erey murugo ah ama haddii aad wax ka samaysid. isku day mar walba gabadha aad jeceshahay inaad ka farxisid. 3. mar walba gabdhuhu waxay jecel yihiin goobaha damaashaadka ama dalxiiska, sababtoo ah inta badan waxay yihiin kuwo guriga joogo. laakiin habeen haddii aad casho sharaf u wado mar walba waxay ogaanaysaa in dadka kale ugu dhowdahay uguna qiimo badan tahay. isku day mar walba gabadha aad jeceshahay goobaha dalxiiska iyo nasiinada inaad geysid si qalbigooda u soo dego. isku day mustaqbalkiina iyo reerkiina inuu doorsan yahay. ninka ragga ah waxaa laga rabaa mar walba mustaqbalka ama reerkooda ama noloshooda siday tahay in labadooda ay ku kalsoonaato. haddii mar nolosha ama xaaladda guriga ka jirta bannaanka u soo baxdo way adkaanaysaa reerkaas inuu sii dhisnaado. gebi ahaanna waxaa imaanaya furiin ama in la kala tago. sidoo kale waxaa la rabaa gabadhu inay tahay gabar socod gaaban, bixitaankeeduna uusan badnayn, mar walbana guriga joogto, sababtoo ah haddii uu socodka badnaado shaki ayaa imaanayo. sidoo kale ninkan waxaa ku furmay stress, taasina waxa ay keenaysaa reerkii inuu burburo. hadiyadaha, mar walba gabdhuhu waxay yihiin kuwo hadiyadaha jecel. haddii hadiyadaha waxay kala yihiin kuwo jacayl isku siiyo, kuwo walaaltinimo. laakiin gabdhaha waxay aad u jecel yihiin qofka saaxiibka ay leeyihiin ama dunida qofkay ka calmadeen mar walba hadiyaduhu keeno. ruuxa jecesha haddii ay jiraan mar walba hadiyadaha saaxiib ugu dhig. codka, oraha, maqalka taleefanku waxa uu sii kordhiyaa jacaylka lamaanaha. labada qof ee isjecel mar walba ay soo xasuustaan ama mar walba ay soo xiriiriyaan ama mar walba ereyada macaan is dhahaan waxaa imaanaysa jacaylkooda inuu hore u siyaado ama inuu hore u sii socdo. haddii ruuxa jeceshahay ka fakar mar walba inaad xiriirisid ama aawacdid ama waqtigaada qayb ka mid ah siisid, sababtoo ah waxaad soo jeedinaysaa qalbi kaa sii jeedo ama waxaad qalbigiisa ku abuuraysaa dareenaan dhammaan. waxaa idiin soo gudbinayaa anigoo ah Mahad Abuukar Maxamed Mahad Socdaal. waxaa ka daawanaysiin barta YouTube-ka ku leenahay Socdaal 24 iyo aaladdeena TikTok-ga Socdaal 24. intaan ku kulmi doono warbixintan oo kale sidaas nabadgelyo. waana ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan.